xildhibaan Cali Cismaan Ibraahim Cali Ciiley oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa soo dhaweeyay heshiiskii laga gaaray ismariwaagii siyaasadeed ee ka jiray arrimaha doorashooyinka taasoo la filayo inay dalka ka dhacdo doorasho wadar ogol ah. sidoo kale xildhibaan Cali Cismaan Ibraahim Cali Ciiley waxa uu soo dhaweeyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. warmurtiyeedkaas oo lagu sheegay in lagu xaliyay wax walba oo kala aragti duwanaansho siyaasadeed ah dalkana uu aadayo doorasho. bismillaah alxamdulillaah marka hore waxaan rabaa horta inaan idin mahad celiyo TV-ga Hirshabelle sida sharafta badan leh ee mar walba aad bulshada ula wadaagtiin aragtiyaha iyo horumarada mar walba ay gaarta ee Soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle. inta kadib badan aragtideedii ku darsado waxaan bogaadinaynaa ama aan bogaadinaa shakhsiyan ka xildhibaan ahaan shirka wada tashiga qaran shalay communique ka soo baxay oo aanu aragnay mid guul ah kaasoo aanu isleenahay muddo badan anaga aan ka dowlad goboleed ahaan aan qayb ka ahayn dadaal badanna aan gelinay waliba aanu ka midnahay badbaadiyaasha qaranka markii ay xaaladdu adkaatay waxaanu isleenahay guul guud ahaan Soomaaliya u soo heetay gaar ahaan anaga Hirshabelle aanu isleenahay waa mid aanu ma aragtay amaan iyo bogaadin guud ahaan aan u jeedinayno annagana aan qayb ka nahay marka waxaan leenahay hambalyo waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Ilaahay idmo doorasho lagu kalsoon yahay xalaal ah natiijadeeda lagu qanco ay hormuud u tahay Hirshabelle inay dhici doonto haddii Alla idmo insha Allah. Mahad Axmed Calasow, Hirshabelle TV, Jowhar.